xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxay u ballansanayeen in ay ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay Xamse Cabdi Barre oo golaha ka codsaday in ay ansixiyaan xukuumaddiisa cusub. iyadoo loo fadhiyo ansixinta golaha wasiirada cusub ayaa hal mar waxaa isbedelay goobtii kalfadhiga baarlamaanka iyadoo goobta noqotay mid buuqa. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay diidanayeen ansixinta golaha cusub waxayna dalbanayeen in laga qabto mooshin. afhayeenka golaha shacabka ayaa xildhibaanada ka dalbaday inay fadhiistaan oo jawiga ay dejiyaan. xildhibaanada qaar ee diidanaa in xukuumadda cusub la ansixiyo waxay soo aadeen goobta uu fadhiyay gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxayna dalbadeen in iyaga aanan ku qanacsanayn xukuumadda uu soo dhisay Xamse Cabdi Barre. afhayeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa mikrofoonka qabsaday waxaana uu sheegay xildhibaanada golaha shacabka in goobta loo joogo kaliya ansixinta golaha wasiirada aysan wax kale qaban doonin. howlka baarlamaanka waxaa soo galay ciidamada booliska ee gacanta ku haya ammaanka xarunta baarlamaanka si xaaladda loo dejiyo. dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa u istaagay sidii xaaladda loo dejin lahaa oo golahu howshiisa u wadan lahaa. markii xaaladda la dejiyay waxaa bilaabatay in la ansixiyo xukuumadda uu soo dhisay Xamse Cabdi Barre waxayna xildhibaanada ansixiyeen xukuumadda kadib waxaa isla goobtii lagu dhaariyay golihii wasiirada. xildhibaanadii diidanaa ansixinta golaha waxay sheegeen in golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aanan wax fiican sameyn. lama oga waxyaabaha dhici doona kulamada xiga ee baarlamaanka.